Somaali fara badan oo ku sugan wadankan ingiriiska ayaa la sheegayaa in laga dhacay lacag 10 kun oo dollar. Dadkan ayaa ahaa dadka xagaaga ku laabta wadankii ee tigidhada u goostay iyaga iyo qoysaskooduba. Travel agency ama shirkadaha ka ganacsada iibinta tigidhada oo ku yaalay magaalada Birmingham ayaa gabi ahaanba albaabada la isugu dhuftay waxaana la laayahay mulkiilihii goobtaasi tigidhada ku jiri jiray meel uu jaaliyo cidhib dhigay kadib marka uu 10 kun oo dollar uu ka ururiyay boqolaal qoys oo Soomaaliya oo sanadka ku tala jiray inay dib ugu noqdaan xilliga xagaaga ee fasaxyada iyaga iyo caruurahooduba gudaha dalka. haddaba qoysaskani waxa ay wiil dhalinyaro ah ay ku dirayeen lacagahooda qaarkood si kaash ay u geynayeen qaarkoodna xawaaladaha ay ugu dirayeen sidaas awgeedna waxa uu u sheegay inuu jari doono tigidhka ilaa 8 tigidh oo kamid ah tigidhadaasi waxaan la xiriirnay shirkadaha diyaaradaha Ethiopia Airlines, British Airways, Emirates iyo diyaarado fara badan oo dadkaasi ay ku qornayeen waxaana noo sheegeen in tigidhadan markii hore la jaray markii dambana la dalbaday lacagta ama la cancel gareeyay oo refund la dalbaday lacagtina dib loola soo noqday. intaasi dabadeedna sidaas uu ninkii intuu lacagtii uu dib u dalbaday uu ku qaatay qiyaas ahaan waxa la tiro koobaya inay yihiin boqolaal qoys lacagtuna ilaa hadda inta la ogaaday 500 kun oo gini in ay ka badan tahay. qoysaska ayaa badanaaba dib ugu noqday xilliyada xagaaga wadankii waxaana ku kacda lacag aad u fara badan iyo dhaqaale fara badan inay tigidhadaasi ay ku iibsadaan muddana waa ay diyaar garoobaan. wiilkan waxa hadda la sheegayaa inuu goobtaasi uu toddobaadkii u dambeeyay ba xiray isla markaana wadanka iskaga baxsaday waxa jira xogo kala duwan oo soo baxay oo sheegay in wali gudaha wadanka Ingiriiska ku dhuumanayo qaarkoodna waxay leeyihiin dalka waa uu ka baxay oo wadanka Mareykanka ayaa u qabtay. dhibaatada markaa tani ay keenaysaa waxay tahay qoysas fara badan in uu dhaqaale burbur u geystay oo dadka qaar ba 10 iyo 12 qof oo family ka kooban ah oo lacag 12 kun 20 kun oo dollar hal qoys keligooda laga qaatay oo ay tahay lacagtii ay ugu talagaleen inay ku soo dhoofaan xagaaga wadanka ay ugu soo laabtaan. khatarahan ayaa badanaa yimaada marka xafiis si adag u jira aadan ka goosan tigidhadka lacagtaaduna aanay sifa sharciya ku bixin aad kaash qofka gacanta ka siisid bangina aanay marin ama aad xawaalada ugu dirto. wiilkan oo ah wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliya magaalada Birmingham muddo ka ganacsanayay magaciisana Cadnaan lagu magacaabo ayaa wali la baadi goobaya laakiin waxa la isla qirsan yahay oo la isku raacay inaanu inankaasi hadda meeshiina furin goobtiina joogin sidaas awgeedna aan la heli karin. idin laba wadaagi karo sawiradiisa iyo xogihiisa oo si faahfaahsan maadaama uu yahay eedeysane dacwad maxkamadeedna aanay ku dhicin cadeymo kale oo maxkamadeed uu sheegay dambiga inuu galayna aynaan u haynin ma doonina inaynu dhibaato u geysano isaga sumcadiisa iyo qoyskiisa. laakiin wadankan Ingiriiska ilaa iyo shalay toole waxa ka jiray dhibaatadaas ayaa ka taagneyd guuxaad fara badan ayaa ka jira badi dadkii tigidhada u goostay xilliga xagaaga oo bishan 7 hadda ay bilaabmaan inay baxaan cadibaad fara badan ay halkaasi kala kulmeen airportka Heathrow oo ah kan ugu weyn ee Soomaalidu dib uga soo dhooftay markay dhoofayeen maalintii shalay toole numa suurtagal inaan idin soo dubno laakiin waxa laga dareemayay soo waxan iyo buuqaadu fara badan diyaaradihii u soo kacay gaar ahaan Ethiopia Airlines iyo diyaaradaha Dubai soo maray Soomaalidu raacaysay oo ku dhawaad 100 qoys ayaa shalay toole halkaasi laga soo celiyay oo dhamaantood la sheegay in tigidhadoodii aanay waxba ka jirin oo airportka muddo fara badan tubnaa markii dambana iska soo laabtay. qiyaas ahaan inta qoys ay imika la ogaaday sidaan idin sheegay lacagtoodu 500 kun oo dollar ay kor u dhaafaysaa welina faray kama qodna way boqolaal qoysas ayaa dhoofayay. waxaan wixii kale ee xoge ee ka soo kordha waan idin la soo socodsiinaynaa waana ka taxsiyadeynayna qoysaskaasi safarada isku diyaariyay iyagoo fara badan hantida maanta wadankan Ingiriiska lagaga dhacay. nabadgelyo.